السلام عليكم وفرح ويان دكتور فرح بده maanta waxaan ka hadlayaa sidaad takhaatiirta qalniinka ee teetarska wadanka Somaliland iyo wadanada af Soomaaliga ku hadlaya siday uga faa'iidi karaan waxyaabaha aynu UK aynu ku sameyno ee takhaatiirta dadka qalaya waxaana ila soo caawisay in la diyaariyo slideskan Dr. Marwa Jaamac aad u mahadsan qalniinka markan cudurkan COVID ay adduunka ku wada faaftay way ka duwan tahay mararka kale waxaa la rabaa inay takhaatiirtu theaterska ka shaqeeya ee general surgeonka orthopedicska obstetric surgeonka iyo theater nurseskoodoo dhan inay ogaadaan inay wax bedel isweyna dhacay waxaa la rabaa ina markan qalniinyada muhiimka unina la sameeyay qalniinka la yiraahdo elective-ka ah ee qofku uu anytime sameyn karo waa ina ama la joojiyo ama 3 bilood 6 bilood oo kale dib loogu dhigo reasonka sidan loo sameeyayna waxaanu la rabin inay dad badani ay hospitaalka imaadaan oo cudurkani ay ku faafin waxaana la rabaa inaanan dad badan aynan sariir u baahan because waayo qofka marka la qalo badni sariir buu u baahanayaa cudurkii bas ku faafi kara marka qabsin oo kale haddii ku qabato appendicitis cholecystitis badni waxaa lagu daweyn jiray qalniin laakiin imika waxaa la rabaa marka ugu horeysa ina antibiotic qofkii lagu tinjaabiyo qofka surgeonkuna waxaa la rabaa inuu qalniinkaasi markuu sameynayo inay maray muhiim tahay marka waxyaabahaasoo kale aynu ka hadlaynaa laakiin listskiina eega hadday surgeonkani u baahan yahay inay muhiima tahay waa in la sameeyo haddayna ahayna waa ina dib loo dhigo qofku markuu hospitaalka soo galo oo uu calool xanuun sheegto waa ina laga fikiro could it be abdominal COVID waxaa la sheegay 3 ilaa 80% oo qof ayaa abdominal COVID qaba abdominal COVID-na waa cudur aanan badni laga hadlin laakiin dadka qalniinka sameeya sida Marwo oo kale ay yaqaanaan abdominal COVID-na inta badan qofku qofac iyo xumad ma leh laakiin calool xanuun buu iska arkaa ama shuban ama matag dadkaasna markay hospitaalka soo galaan oo surgeonka loogu yeedho as abdominal case waa ina qofka ugu seniorsan qofka dhakhtarka ugu seniorsan uu eego waayo qofkaasi si degdega ayuu go'aan u gaadhi karaa inuu qofkani u baahan yahay inuu hospitaalka joogo oo la qalo ama gurigiisa la geeyo antibiotic la siiyo dib u soo hadla hadduu sii xanuunsado waxaa la isku wada raacsan yahay collegeyada ingiriiska ina la sameynayo avoiding surgery waa qalniinka ina dib loo dhigo haddaanan loo baahnayn laparoscopic surgery-gana badni waa ina la joojiyo waayade isagu marka keyhole camera keyhole la sameeyo badni wuxuu hawada ku sii daayaa dhibicyo fara badan oo cudur ka qaadi karaa waa sida intubationka oo kale sidaa iyo sileeg takhaatiirta orthopedicska drillka lafaha geliya iyaguna dhibco fara badan bay sii dayn karaan marka operationka drill kale ama orthopedic ha noqdo ama neurosurgery ha noqdo badni waa inay iska ilaaliyaan takhaatiirta qalniinka sameeya mid kalena hadduu qofku abdominal surgery lagu sameynayo waa ina laga ilaaliyo anastomosis waayo marka anastomosis la sameynayo waxaa lagu arka dhibco fara badan oo hawada theaterska dadka qabadsiin karo cudurkan coronavirus markaa badni waxay sameynayaan stoma wax la yiraahdo marka kolay way garanayaan dadka qalniinka sameeya stomagaasaa ka wanaagsan anastomosis
marka dambena waxaan insha allah ilaahay uu idmo uu cudurkan covid uu insha allah naga tago, stoomaha waa la reverse garayn karaa. marka appendicitis ama cholecystitis haddaad go-aan gaadhaan qofku inuuna qalniin emergency u baahnayn oo antibiotic aad siisaan, waxaa la samayn karaa dheecaanka infectionkana waxaa loo samayn karaa drainage. dadka surgeryga ku jirana waa inay wada PPE maryaha daafacaadda wada qaataan. operating theaterka waxaa fiican ina zones loo kala yeelo. waa hab aan ku tusi doono, picture aan kugu tusi doono. waxaa la rabaa inay dadku markii intubationka la suuxinayo ee ventilationka lagu samaynayo, inay dadka muhiimkuun inay joogaan oo labada qof ay PPE gashadaan. qof kale yuunan 10 minute ka dambe yuunan soo gelin. qalabka oo dhanna waa inaa la qariyo oo saynan dhibcaha yaryare cudurka qaadaya aynan ku dhicin. zoninkiina waa kan waxaad arkaysaan, waa operating theaterkii. patientkii wuxuu ku jiraa dhexda 2 mitir kadibna patientkii madaxiisana waxaa jooga dhakhtarka suuxinayay, lugtiisana waxaa jooga dhakhtarkii qalayay. 2 mitir hareerihiisana waa red zonekii. marka waa dadkaasi waxaa joogin dadka qalaya iyo assistantkiisii. dadkaasi PPE bay gashan yihiin. waa high contamination. qalabkiinana inta aad muhiimka u baahan tihiin baad halkaa ku haysanaysaan. orange zoneka ama yellow zonekuna waa dadka u kala dhexeeya meesha nadiifka, green zoneka iyo red zoneka. orange zonekuna dadkaasi waxay gashanayaan normal surgical mask iyo gown. dadka orange zoneka iyo dadka green zoneka isma taabanayaan. waxaa la rabaa dadka greenkana qalabkii badni halkaa lagu hayo. waa hareerihii theaterka weeyaan green zoneku. green zoneku trolley haddii red zoneku u baahan yahay, qofka yellow zoneku u dhiibaya isagoo trolley qalabkii ku jirto, isma taabanayaan. marka halkaasu trolleyga looga dhiibaya red zoneka. orange zonekuna waa meesha markuu operationku uu dhammaado maryihii PPE-ga lagu siibayo oo halkaasa lagaga tegayaa. orange zonekuna wuxuu la sibnaan karaa sluiska. marka kabahana waa ina la ilaaliyo. waa ina orange zoneka PPE-gii halkaa lagaga tegay, qofkii markuu falxashay uu nadiif noqday. green zonekana kaba kalu ka qaadanaya. markuu qof kasta ka baxay ee labadii qof ee hore operationka joogay, markuu qof kasta ka baxay 10 minute kadib ay labadii qof joogayaan oo extubationka la samaynayaa. marka ogaada waxaa la rabaa inay hosbitaalkii in yaruun la joogo, badni inay dadku ay guryahooda joogaan. nasogastric tubeka waa tubeka sanka la gelinaya ilaa caloosha, waa aerosol generating procedure AGP. isaguna waa sidaa iyo si la-eg operationada. marka loo baahan yahay waa in la sameeyo emergency-ga tahay, waa inana zoningna lagu sameeyo. dadka sameynaya nasogastric tubeka ay full PPE gashanaadaan. ogaadana saxaaradana waa laga helay SARS-CoV-2. marka contentskan waa ina laga ilaaliyo shaqaalaha PPE gashadaan. slidekii halkaasi ku dhamaatay. marka insha allah kolley waxaa jira su-aalo hoosta kusoo qoro insha allah. video kalena waa marwa oo iyaduna hosbitaalkii zoning ka sheegaysa oo idin tusaysa.